madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Xamza Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka xubinna ka ah xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha ayaa sheegay in uu muddo ka baaraandegayay xulashada qofka noqon kara ra'iisul wasaaraha isla markaana uu arkay Xamza inuu yahay shakhsiga ka soo bixi kara hawshan. Xamza ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa magacaabistiisa kadib sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad u qalanta in dalka ay samata bixiso kana shaqeyso hadafka Soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis la ah. haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub? Xamza Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya horaantii 1970kii. waxbarashadiisa aasaasiga ah ee dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay gudaha dalka. jaamacadda heerka koowaad waxa uu ku soo qaatay wadanka Yemen, halka shahaadada heerka labaad uu ku soo qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia. hadda waa xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doortay deegaan doorashadiisuna tahay Jubbaland. waxa uu xubin ka yahay xisbiga nabadda iyo horumarinta ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo horey uga soo noqday xoghaye. inkastoo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay xafiisyada dowladda federaalka Soomaaliya, magaciisa waxa uu si weyn u soo shacbaxay markii uu noqday gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020. intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 waxa uu ahaa la taliye dhinaca maamulka u ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ee xilligaas Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. howlaha kale uu Xamza soo qabtay waxaa ka mid ahaa in uu la taliye sare ka soo noqday wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaaleynta. tan iyo markii uu soo dhawaaday waqtiga gabagabada ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u haysto ku dhawaaqista ra'iisul wasaaraha, waxaa baraha bulshada aad loogu hadalhayay la iskuna dhaxmarayay siyaasigan inuu noqon doono qofka la xulanayo. Cabdinaasir Socdaal, Dallas News.